السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وصاحب يال ومركل أي برنامج كان قصوي كها لكن وغرين حنود عيننا ولا له ريق يدمان قفل بدبات هايستو الله قرقارو قصة قيبتي لا واضح إنه وجوكتي يوغي سوسو دوانيان نور يفرطون وإريو حب يكالك على الاسم سنايو لكن حريركو قولي كسليسي هاي من ورالتني معه oo aan wali loo gudbin xiriirkii jacaylka ah oo waliba dareenka iyo xubbiga uu ku badan yahay xagga nuur laakiin xiriirka ka dhaxeeya ay walaaltinimo ha ahaadeen laakiin jacayl uuna waxba dhaabin ninkii nuur wax walba isku dayay jacaylka walaaltinimada ah inuu bedelo oo xiriir jacayl u bedelo wax walba uu sameeyey geeraaro iyo gabayo iyo ammaan iyo fariimo jacayl wax walba uu diray gabadhu laakiin waxay u fahmaysaa mar walba in walaaltinimadu sii xoogeysanayso dadka dhalinyarta tartanka ku jirta maahina dadka kale bulshaduna waxay u malaynayaan inay jecel yihiin bay u malaynayaan xataa dhalinyarta laftirkoodu kuwa xog hoose haya mooyaane waxay og yihiin oo u malaynayaan inay xiriir jacayl ka dhaxeeyo labada qof sidii aadka isugu badan yihiin isla socodkooda sheekadooda iska warhayntooda isku dhawaanshaha aadka ka dhaxeeya ninkii xaalkiiba ku xumaaday si uu gabadhii wax ugu sheegto garan waayey ugu dambeyntii sidii caadada u ahayd saaxiibkii maxamed oo ahaa liqliyihiisa gaarka ah ayuu talo u doontay wuxuu yidhi niyow arrinku halkaasuu marayaa ila tali saaxiibkii wuxuu kula taliyey wixii la qarsadaa qurun baa ku jiree oo wixii la qarsadaa way ku qarsadaane horteg oo wax allii waxaad u qabtood qalbiga ku haysa u sheeg runtana u sheeg siduu xaaliyaheen uga waran kulankaa xigay ugu horreeyey ee fartuun iyo nuur dhex maray kulamada hore u ka duwan yahay awalkii hore walaaltinimo iyo si guud baa la isku bareedin jiray laakiin kulankani uu ka duwan yahay nuur baa hadalka bilaabay iswaraysi iyo isxaal waraysi kadib nuur hadalkii uu gafgafay oo kalba meel oo indhuhu isku qabtay waraacadu hadal bay tiri maxaa isbedelay maxaa jira wuxuu u sheegay sida xujaan iyo kaftan iyo walaaltinimo inaan sheekadu ahayni hadalka dhabta ah uu yahay inuu jecel yahay xiriirka walaaltinimada ah ee walaaltinimo aan dhaafayna uu rabo inay u bedelaan xiriir jacayl kaasoo ku dhammaada marka dambe mustaqbal iyo inay isguursadaan wuu ammaanay geeraar iyo waxba u tiriyey fartuun waxay tidhi arrintani kadis bay ku tahay anu walaaltinimo un baan u haystay xidhiirka naga dhexeeya bal waan ka soo fikiri arrintaas waan ka soo fikiri chance c wana fiican tahay in qofku chance qaato oo ka soo fikira arrintaas ninkii nuur kamuu filaynin gabadhaasi inay sidaa ku samaynayso wuxuus lahaa way ku jeceshahay iyaduba way ku sheegan kara laadayo waa gabadh way xishoonaysaay markaad kaga horreyso way ku farxi doontaa habeenka wuxuu aada ugu walwalay oo aada uga shallaayay maxaad uu sheegtay maad iska aamustid maad qarsatid afkaaga maad iska haysatid calaacal iyo murugo ayaa ninkii u bilaabantay habeenkii si fiican umuu seexan wuu wacay wuu ka qaban weyday fariimo u diray way ka qaban weyday maalin kadib wuu wacay way ka qaban weyday fariin buu u diray gabadhii way isbedeshay ninkii baloog bay saartay meel kasta way ka baloogtay meel walba way ka xidhatay jawaab way siin weyday oo macnaheedu yahay gabadhaasi in ninkaas jacaylkii iyo wixii uu ka sheegayay ay si qalada u fahantayoo aanay dan ka lahayn oo arrintaasi iyadu aanay u soo jeedin say doonta waa ka ahaatay ninkii maxamed markii gabadhii telefoonka qaban weyday ee meel kasta laga baloogay
ee fariin looga soo jawaabi waayey waxa uu bilaabay in cuntada ka go'o in hurtadu ka yaraato ninka saaxiibkii maxamed baa ninkii nuur waayey wuu raadiyey fasalladii iyo casharadii uu ka dhex waayey gurigoodii buu ugu tegey wuxuu arkay ninkii nuur oo isbedelay oo caatoobay oo qol ku jiray keligii fikiraya wuu naxay waa maxaa dhacay nuuro maxaa ku dhacay see wax isu jira ninkana waa saaxiibkii waxba kama qarsado aad buu ugu warramay siday wax u dhaceen ayuu uga sheekay in gabadhii ay ku abaal dhacday jacaylkii aa u sheegtay maalinkii wixii ka dambeeyey gabadhii telefoonadana ka baloogtay fariinta u diro iyo cod hadduu u diri lahaana meel alla meel ka xidho aana jirin fariimo hore u dirayna ay ka soo jawaabi weyday kadibna telefoonka ba xidhatayba gabadhii sidaa faraa kaga baxay maxamed saaxiibkii wuxuu ku qanciyey inuu soo jawi bedelo oo meeshan uu fadhiimka ka kaxeeyo oo meel dalxiis geeyo uu kaxeeyey wuxuu geeyey xeebta jasiira oo muqdisho ku taallaa qof aan garanayn jasiiruu geeyey baddu cagaha u soo geliyey xeebtaasuu geeyey bal si uu ninkaa saaxiibkii oo niyaddiisu soo bedesho oo qolkii aa ku xidhnaa iyo murugtii iyo istaraskii iyo isla hadalkii iyo buuqii ku furnaayey awday uga soo baxo laakiin ninkii nuur niyad uma hay dalxiis iyo waxaa qof qalbigiisu maqan yahay oo meel ku maqan in meel u caddahay meel ka midow wuxuu ka fikirayaa gabadhii unbaa qalbigiisa ku jirta inkastoo maxamed dareensan yahay dhibta walaalkii haya saaxiibkii haya wuxuu ku qanciyey uu u duceeyey oo waano iyo dhiirigelin buu siiyey qisooyinka nebigu uga sheekay aduu gabadh yar kaa tagtay iyo qof yaroo bini aadan oo miskiin oo kaa danaystay oo telefoonkaa qaban waayey oo sidaa doonaysay kuu noqon waayey baad ka calacalaysay wuxuu ku yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadda ugu khayr badan ayaa dadkii ugu dhowaa oo adeerkii abulahabi oo ummadda ku diray oo tolkii quraysha ka dhashay ay dhibeen dhulkiisii ay ka eryadeen magaaladii makee u jeclaa ee uu ku dhashay ay ka caymadiyeen isagoo jecel waa kii nebigu lahaa makoy waan ku jecelahay dhulka ilaahay abuuray makayadaan kugu jecelahay haddaan layga kaa eryana kaama bixin markaa nebi maxamed ayaa saa loo dhibaateeyey oo mandheer qoyn dusha laga saaray oo candhuf lagu tufay oo la murug geliyey wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida diinta laygu cabsi geliyey qof laguma cabsi gelin sida diinta laygu dhibay qofna laguma dhibin markaa qisooyinkaas uga sheekeeyey in nebiga la dhibaateeyey nebiyadii ka horreeyey la dhibaateeyey asxaabta la dhibaateeyey markaas kuui walaal waxa aad ka sheekeynaysaa adiga dhibicina agtooda kama aha marka dhibaatadii nebiga la mariyey iyo dadkii fiicnaa la mariyey wuxuu xataa u soo qaatay nebi yuusuf calayhi salaam sabirkiisii inuu intaasoo sano isagoon dembiba gelin oo ku xidhnaa jeel quruxdiisa darteed oo ku xidhnaa jeel intaasoo sano waxaasoo dhan ayuu uga soo sheekeeyey wuxuu iska sabir inaad sabirto ayaa loo baahay marka qofka muslimkiina haddii qadar ku dhacdo inuu sabro oo adkaysto oo qisaskii iyo dadkii hore ee ka dhibta badnaa ee waxaan uu sheegayo wax ka weyn ku dhaceen waa inuu dib u eego haddaad u caafimaad qabto dad baa xanuunsanaya markaa ninkii uu waaniyey qisaskaas uu soo qaatay wuxuu ku yidhi niyow waxaan ku haysataa waa wax yar qof muslimaad tahay sabir waayo hadduu stressku kugu bato ood qofkii ka fikirto marka dambe waxaa laga yaabaa inaad dembaabtaba ood meel xun naftaada disha laga yaabaa ninkii nuur markuu dhegaystay saaxiibkii guubaabadiisii dardaarankiisii iyo wacdigiisii markuu dhegaystay iyo ducadii inuu duceeyey weliba ayuu ku yidhi ilaahay kaa aqbalo ilaahay subxaana watacaala adna abaala kaa siiyo wuuna qancay qof nin diinta ku fiican oo iimaan qabana uu ahaa isna saaxiibkii wuxuu dardaaran iyo waana wuxuu siin karaya buu siiyey
ونو مهد علي وحونا قوان كو قاري مالك وحي كدنبي صاحبكين او بلان قاضي إن أنا سفرتون دنبي لغو أركتوني wuxuu ku gabagabeeyo qisada ku dhamaanaysa ismaan lahayn dheeshuba mar bay ku dhaawici erigas ayaa laga hayaa ninka marka jacaylka waxa la dhawaayay wax aad u dhib badan oo dadka qaan xanuun ku noqdo marka qisadaasi intaasi ku eeg tahay in jacaylka dhicisoobay marka hore dhan uu ka socday dhanka ninku uu ka socday gabadhan walaaltinimo iyo waxaan buu haysay markii dambana isku joojisay wata la marada ka xiratay intaas ku soo gabagabeynaa intan qisa kale ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh